anigu waxaan ka diyaariyey teesahayga PhD-da guud ahaan mawduucan aan sameynayay PhD dhaqaale u ahaa, laakiin teeskay wuxuu ku saabsanaya investmentiga lagu sameeyo human capitalka, maalgelinta dadka inay lafdhabar u tahay horumar kasta oo waddan uu gaaro. marka anigu waxaan eegayey oo daraasadeedu ku saabsanayd lacagaha dadka ay ka soo diraan wadamada ay ka shaqaystaan oo loo yaqaan remittancy-ga. waxaan focus ka saaray 42 dal oo Afrikaan ah waxay u tarto lacagtaasi marka laga fiiriyo dhanka human capitalka investmentiga, gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka. sidoo kale shaqadii u horreysay heritage ka qabtay waxay ahayd mashruucii city iyo heritage la wadeen oo ahaa Somalia Human Capital Development Strategy, oo runtii markii koowaad ay Soomaaliya yeelato khidada ama tabta horumarinta karaanka aadanaha oo ay maalgelinaysay hay'addan Somali Stability Fund. macadka iyo city baa isla sameynayay daraasad runtii baaxad leh oo almost 2 years socotay, si goonina loogu eegayay Soomaalidu meesha ay ka joogto horumarka karaanka aadanaha, waxbarashada, caafimaadka. waxaa kaloo jiray inaan si gaar ah diiradda u saarnay sectorska lafdhabarku ah dhaqaalaheena oo ay ka mid yihiin beeraha, kalluumaysiga iyo xoolaha. waa daraasad runtii dad khubro ah oo aad fara badan ay ka shaqeeyeen. waxaa loo aqoonsaday inay qayb ka noqoto qorshaha horumarinta qaranka 9aad National Development Plan 2020-2025. haddaad akhrisaan reportkaas ka arkaysaan. waxaa kaloo jiray strategy la sameeyey oo runtii mawaadiicda kala duwan oo waxbarashada, shaqo abuurka, caafimaadka, beeraha, kalluumaysiga laga sameeyey. intaas marka laga soo tago aqoonta yarta oo kooban baan waxaan rabaa inaan dul istaaga muhiimaddu ay leedahay maalgelinta karaanka aadanaha. sida la wada socotaan waxaa inta badan markii theory-ga dhaqaalaha laga hadlayo theory kala fara badan baa soo baxay qarnadii la soo dhaafay. dadka khubarada dhaqaalaha ama culimada dhaqaalaha waxay dhahaan waxay aad xoog u saari jireen waxa la dhaho physical capitalka. formulada dhaqaalaha waa dad badan waxa laga yaabaa meesha inay fadhiyaan. wuxuu wax yar uga duwan yahay science-ka. science-ka wuxuu la taaban karo de lab lagu tijaamin karo, laakiin dhaqaaluhuna wuxuu ku dhisan yahay waa formulo oo assumptions laga sameynayo. marka waxay soo jeediyeen inta badan in physical capitalka haddaad leedahay machine, haddaad leedahay dhisme, haddaad leedahay dhaqaale oo lacaga, waxay kor u qaadaa productivity-ga waddankaas ama society-ga ay leedahay. runtii formuladaasi dhaqaalayaano ka dambeeyey kuwa hore oo sheegay waxay soo jeediyeen sidoo kale technology-ga roolka uu ku leeyahay koboca dhaqaalaha. kuwa dambe waxay soo saareen muhiimadda ay leedahay karaanka qofka ka shaqeynaya mashiinka iyo guriga iyo financiga inay muhiim tahay, oo hadduusan qofkaasi xirfad iyo aqoon lahayn inuusan maximize garayn karin productivity oo uusan kor u qaadi karin wax soo saarka. marka haddana hadda waxaa socda trending ah adoo human capital fiican haysta oo resource fiican oo skill dad leh haysta, haddaysan institution ku dhisnayn oo governance-ga ku dhisnayn, inaysan muhiim ahayn, inaysan macnaha suurtagal ahayn inaad kabaca dhaqaale kor u qaadid. khubradaasi waxay tusaalooyin u soo qaadanayaan wadamo resource fara badan haysta oo natural resource haysta oo de wadamada Afrikaan u badan yihiin oo aan horumarin, iyo wadamo aan waxba haysan oo sida Singapore oo kale aad u yar oo very tiny state ah oo haddana meel fog gaaray. marka jawaabaha soo baxay waxay ahayd waa karaanka dadka, human capitalka dadkaas ay leeyihiin, cilmiga iyo tabarta iyo aqoonta iyo xirfadda iyo even xataa qayimka dadka. dadku dad discipline leh oo sometimes adoo aqoon leh oo xirfadii haysta haddii aadan discipline lahayn oo qayim lahayn oo yani aadan hagaagsanayn maskaxiyan inaad horumari karin. marka Singapore baa loo soo qaataa wadamada aan resource ka lahayn iyo kuwa kale oo fara badan oo Finland ka mid tahay oo karaanka dadka aadanaha ay ka gaareen meel sare. marka intaas waxay runtii
fududeysay wadamada Afrikaanka oo inta badan resource ka haysta Nigeria wadanka ugu weyn hadda wadamada dadka population marka loo fiiriyo khayraad aad fara badan lahayn iyadoo wadamada ugu aqoonta badan wadamada Afrikaanka haddana still inaysan meesha loo ka gaarin marka labada ku soo laabanay waxay ahayd investmentiga dadkooda ay leeyihiin iyo institutionskooda hadday noqoto dhanka maamul wanaaga iyo dawlad wanaaga iyo hay'adaha u dhisan sida ay transparency u leeyihiin oo u daahfuran yihiin Soomaaliya kadib deen cafinta marka annaga waa la wada soconaa haddaan overview ka bixiyay study-ga aan sameynay 2020kii macadka iyo jaamacadda City waxaa ka soo baxay dadka Soomaaliyeed ugu yaraan 70% wax ka badan waliba dhalinyarada school age population-ka inaysan runtii haysan fursado waxbarasho dugsiga hoose dhexe waxaa lagu qiyaasay 4 milyan dad ku dhow markaas waxay 3.5 milyan dadka Soomaaliyeed carruurta Soomaaliyeed inaysan haysan fursad ay ku tagaan waxbarashada asaasiga ah waxbarashada sare waxaa kaloo soo baxay dad dhalinyaro aad fara badan ay soo qalin jebinayaan laakiin khayraadka dalkeena uu leeyahay ama resource-ka uu leeyahay xirfado ku aadan ama macnaha aqoon ku aadan dhalinyaro soo qalin jebinaysa inaysan haysan waxyaalahaas oo dhan oo isbiirsaday waxaa daraasadaasi soo jeedisay runtii talooyin aad fara badan waxaa kaloo ka mid ahaa finding ama natiijooyinka daraasadda ka soo baxay inay dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed aysan haysan ama aysan wax akhrin karin waxna qori karin 50% wax ka badan waa literacy rate-ka Soomaaliya waxaa kaloo soo baxay daraasadda marka laga fiiriyo dhanka shaqaaleysiinta iyo shaqada 70 dad ka badan dhalinyarada Soomaaliyeed inay fursad shaqo haysan shuruucdii shaqada iyo iyadoo ay ka imaanayso runtii caqabado aad fara badan oo ka jira shuruucdu ka mid tahay fursadaha shaqo laftigooda ay ka mid yihiin xirfadaha dhalinyaradu ay baranayaan ay ka mid yihiin thinking-ka iyo mindset-ka dhalinyaradu ay ka mid yihiin oo ay ka qabaan runtii shaqooyin gaar ah sectors-kan kala duwan marka laga hadlayo phases-ka wadamada hormaray dhaqaalahooda uu soo maray waxaan jeclahay inaan xuso tusaale u soo qaato markii wadamadu inta badan xorriyadaha qaateen waxay soo gaareen heer macnaha phase ah inay xoogga saaraan primary commodity-ga economic policy ama stage oo beeraha iyo kalluumaysiga waxaan rabaa inaan xuso halkan ka xuso maalin dhowta waxaan akhrinayay daraasad ku saabsan adduunka ma jiro dal hormaray ama transition to modern economy noqday asagoo aan hormarin beeraha because beeruhu waxay runtii lafdhabar u yihiin marka laga hadlo cuntada marka laga hadlo wax soo saarka marka laga hadlo value chains-ka iyo waxa la dhoofinayo marka waxa la leeyahay daraasadaas ku xusneed no country in the world has transitioned to high level economy without transformation of agriculture sector marka waxa dareemaysaa muhiimaddu ay leedahay in la hormariyo beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga ama sectorska marka phase-kaasi wadamada waxay xoogga saareen sida primary-ga community-ga dalkaasi uu leeyahay ee uu sameyn lahaayeen oo horumarin lahaayeen stage kala yimid oo manufacturing-ka ama industrialization-ka oo isaga laftigiisa laga gaaray in maaragtay wixii ay haysteen oo resource iyo kheyraad haysteen oo beeruhu ay ka mid yihiin ay runtii u bedelaan warshado u bedelaan si looga sameeyo value chains waxaa yimid stage oo dhaqaale oo dadku ay gaareen in service-ka xoogga la saaro oo adeegyada sectorska adeegyada xoogga la saaro maanta inta badan adduunku wuxuu maraya waxa la dhaho knowledge economy ama care economy wadamada qeyrba hadda waxay ka sheekeynayaan care economy iyo dadkii aging population ku dhacay sidii dhaqaalahooda iyo pension-kooda iyo looga fakari lahaa marka annaga maadaama aan joogno stage-ka inaan haysano beero iyo kalluumaysi xoolo oo aan weli gaarin stage-yada kale horumarka ah muhiimadda ay leedahay dadkeena inaan ku tababarno xirfado la xiriira annaga fiiska hadda aan marayno mar walba oo economic policy la sameynayno waxaa lagu base gareeyaa mar walba resource-ka adiga haysatid iyo tabarta adiga dhaqaalahaaga intuu leeyahay maalin dhaweyto Cabdiqafaar baan isla joognay IMF World Bank spring meeting-kii waxaan ka qayb galayay shir ku saabsan civil society role-ka ay ku leeyihiin arrimaha dhaqaalaha oo runtii session aad u fara badan aha su'aalahan weydiinay waxaa ka mid ah Soomaaliya deen cafinta waa gaartay wadamada kale maxaan ka baran karnaa waxay ku leeyihiin wax kale ayaan lagu sameyn wixii deen la qaadanayo ama deeq la qaadanayo ha lagu bixiyo social spending because waa raasumaal kaliya wadanka uu leeyahay haddaad deen soo qaadanaysaan iyo haddaad deeq soo qaadanaysaanba proportion-ka dowladda ama spending-keeda inuu waxa ugu badan lagu bixinayo inay yihiin social development-ga ama human capital-ka waxay dhahaan waxbarashada in xoogga la saaro dadka wax la baro marka dadka wax la baro in sidoo kale maaragtay ay fududaanayso inaad kobaca dhaqaalaha kor u qaadid
sidoo kale inaad caafimaadka because waxaa la sheegaa bulsho caafimaad qabta iyo dad caafimaad qaba waxay ka shaqeyn karaan horumar in miisaaniyadda ugu badan ama miisaaniyada la qoondeynaya waxa ugu borshinka badan in la geliyo sida loo sameyn lahaa inay dadku helaan adeegyo caafimaad waa tusaalooyinka iyo talooyinka ugu badan oo la siinayo Soomaaliya because su'aasha waxay Soomaaliya wadamadan soo maray processkan oo kale rabtaa inay wax uga dayatee maxaa looga faa'iideeyaa waxa ku leeyahay xooga saar waxyaalaha productive sector-kaaga ku ah ina maalgelisid oo bari wax kaaga soo bixi karaan waxaan marka intaas Google ugu tahay mowduucan maanta meeshan lagu jiro oo runtii laf dhabar u ah una noqonayo muhiim dinacafinta kadib Soomaaliya maxay u baahan tahay inay ka faa'iideysto waxaa laga maarmaan ah markaad fiirisid horumarka wadamada ay gaarayaan Human Development Index-ka ama Human Development Report-ka waxa ugu badan oo la sheegay waxa kamid ah in muhiim ay tahay inay laga maarmaan ay tahay inay laf dhabar u tahay in la maalgeliyo society-ga uu dalkaas leeyahay ama bulshada uu leeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay ayadoo runtii isku duuban isku maaragtay wada shaqeynaysa private sector-ka oo runtii hadda waxa ugu badan oo gacanta ku haya iyo civil society-ga horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka iyo dawladda inay iskaashadaan iyo runtii taageerayaasha dalka Soomaaliya taageera inay xoog iyo muruq iyo energy iyo khidad iyo maskax ku bixiyaan siday u horumarin lahaayeen karaanka dadka Soomaaliyeed oo human capital-ka marka intaas waxaan uga dhigay Google Doc waxa jira runtii presentation-o aad muhiim u ah oo halkan ay khubaro ama scholars ay ka soo jeedin doonaan la xiriira shaqo abuurka iyo sidoo kale maalgelinta caafimaadka iyo waxbarashada session-ka waxaa moderate gareynay nasteexo way ka cudurdaaratay way yara caajisanahay tiri marka waxaan jeclaan lahaa anigu inaan idin daadihiyo inkastoo de shaqo kalena hadda aan ku jiray laakiin waxaan rajeynayaa inaan session-kan idila joogo aan idin moderate gareeyo insha Allah waxaa jira warqado marka ay soo jeediyeen cilmi baarayaal markii call for papers kala sameynayay oo ku saabsan mowduucan maalgelinta karaanka aadanaha oo runtii waxbarashadu ay ka mid tahay caafimaadka uu ka mid yahay ay ka mid tahay shaqo abuurka dhalinyarada waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero percentage-ka koowaad waqtigan haysano waa 45 minutes waa xogaa waxaan moodaa inaan dib u dhacnay marka waxaan rabaa inaan u yeero percentage koowaad Yaasiin Xasan Daahir oo soo jeedin doona aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku aadan raadinta shaqada fadlan Yaasiin ila soo dhaweeya alle hada waxa laga yaabaa xogaa protocol-ka khalday waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero percentage-ka oo dhan si halkan u soo fariistaan Yaasiin asagoo wato waxaan u yeerayaa Maxamed Cabdullaahi Axmed oo isagana soo jeedin doona dhalinyarada shaqaaleysiinta dhalinyarada iyo fursadaha Soomaaliya maxay yihiin strategies-ka looga baahan yahay in xirfadaha kor loo qaado iyo dhaqaale loo dhihay waxaan kaloo u yeerayaa Dr. Shamsuddin Abikar isagana soo jeedin doona maalgelinta waxbarashada si loo helo shaqooyin Dr. Cabdulqaadir Shire Dr. Daaci oo isagana xooga saari doona ahmiyadsiinta maalgelinta caafimaadka Dr. Sodow waxaa kaloo u yeerayaa Cali Nuur Cali Aadan oo ah Executive Director-ka hay'adda Gareedo oo runtii ah hay'ad ka shaqeeya waxyaalaha la xiriira caafimaadka iyo waxbarashada Soomaaliya Cali Nuur wuxuu markii percentage ka dhameeyaan wuxuu heli doonaa remarks ku saabsan shaqooyinka ay hay'addu qabato iyo muhiimadda ay leedahay maalgelinta karaanka aadanaha waa mahadsantahay Yaasiin Sodow Dr. Aad mahadsantahay intaan presentation-ka gal waxaan rabaa inaan salaamo aqyaarta meesha fadhiso uguna mahad celiyo macadka Heritage iyo jaamacadda City fursadda ay dhalinyarada siinayaan iyo dalka meesha ay hogaaminayaan aad ay mahadsan yihiin aada masniin mawduucayga wuxuu ahaa baaritaan ku saabsan waxa ay ka aaminsan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo raadinta ama shaqaaleysiinta muku fogaan doona intaan ka koobnan doonaa percentage-keyga hadda usoo gudubno background-ka in ka badan dhalinyarada Soomaaliyeed 50% waxay ahaayeen shaqo la'aan rate-kan wuxuu gaaray 67% sanadii 2012 iyadoo celcelis ahaan muddada shaqo la'aanta ay gaartay sanad taasoo ah heerka ugu sarreeyay caalamka UNDP qortay 2016 intaa kadib
beberkan wuxuu jawaab u raadin doonaa laba su'aal cilmi baariseed oo waaweyn. Midda koowaad waxay tahay waa maxay caqabadaha ugu horgudban shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed. Su'aasha labaad waxay tahay maxay tallaabo kale ah ay haystaan ama ay qaadi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed si ay u yareeyaan shaqo la'aanta. saddex iyo labaatankii artikalkan ay qoreen shakhsiyaadkaas meesha ku qoran magacyadooda wuxuu ku saabsanaa suuqa shaqada ee caalamka iyo maxaa la dhahayay siduu u saameeyey macnaha suuqa shaqada ee caalamka siduu u saameeyey korarka shaqo la'aanta dhalinyarada siduu u saameeyey. artikalkaas ay qoreen waxyaabihii laga helay shakhsiyaadkii la wareystay ama ka qayb qaatay beberkaas 86% ka qayb qaatayaashii waxay aaminsanaayeen in maxaa la dhahayay faktorka ugu weyn ee saameeyey shaqo la'aanta uu ahaa iswaafaqid la'aan ay iswaafaqi la'yihiin number of graduateska iyo job market requirementska in iswaafaqi waayeen. sidoo kale 87.8% waxay ka soo qaadeen inay dhalinyarada shaqo la'aan ahaadaan inay u ogolaato inay ku biiraan xoogaga lidka ku ah amniga guud maxaa la dhahay dalka oo kale. marka methodka aan soo gudubno purposive sampling ayaan isticmaalnay maadaama aan naqaanay ka qayb qaatayaasha inay ahaayeen kuwa shaqo la'aan ah. 15 ka qayb qaatay ayay ahaayeen dadka qayb qaatay studygan 11 ka mid ah waxay ahaayeen rag 4 ka mid ah dumar ay ahaayeen da'doodu waxay u dhaxaysay 15 ilaa 25. survey method aan isticmaalnay oo data ku soo aroornay waxaan ku analyze gareynay qualitative approach. ethical protocolka anagoo ka fiirinayno isticmaalin Cohen Imanion iyo Morrison sanadkii 2020 ka soo sharaxayay ethics inuu yahay in la xismeeyo mabda'a ah first of all do no harm. marka sidaas darteed waxaan weydiin ka qayb qaatayaasha raalli ahaanshahooda ama ogolaanshahooda inay ka qayb qaataan studygan. 15 su'aalood ayay ahaayeen waxa aan soo aruurinaynay oo mid walbana u asaan gareynay kood gaar ah. 15 su'aalood waxaa ku jiray jinsiyadda, age-ka ama da'da, xaaladda guurka, xaaladda shaqada iyo guulaha waxbarasho ay gaareen dhalinyarada. intaas waxaan u sameynay kood gaar ah. su'aalaha questionnaire ku qornaa sidaan ay u qornaayeen kolley waa waxayna ka taabanaa waqtiga yar dartiis. waxaa ka mid ahaa carruur haystaa inaan shaqeeyo waan rabaa skill aan leeyahay shaqo waa heli karaa haddii maxaa la aan shahaadadeeda anoo isticmaalayo. sidoo kale haddaan aqaano mas-uul weyn oo dowladeed shaqo waa heli karay waxyaaba noocaasay aaminsanaayeen. su'aalaha badanaa ma sii geli karo waqtiga awgiis waxaan leeyahay artikalka ciddii maxaa la dhahayay heritage ha u daba gasho. midda u hooseyso waxay ahayd borseeska shaqo helidda dowladeed waa mid daahfuran macnaha su'aalihii ka mid ahayd. marka waxyaabaha aan soo helnay daatada waxay sheegaysay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa shaqo la'aan ah intooda badan ay ku fikirayaan inay shaqo la'aan sii ahaan doonaan. waxyaabahan soo helnay waxaa ka mid ah inay ismaajgareyn la yihiin academic certificateska iyo dhalinyarada haystaan iyo waxa job marketka uu dhiman gareynayo inay maxaa la kala duwan yihiin ay ismaajgareyn la yihiin. sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku fikirayaan inay adag tahay in shaqo dowladeed la helo haddaanan la haynin ama la aqoonin mas-uul weyn oo dowladeed. sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed marka cilmi baaris sameynay waxay tuseen inay shaqo diyaar u yihiin inay shaqeeyaan ay rabaan. waxaan caddayn ku ah qaarkood inay tixgeliyeen inay iskood u shaqeystaan. marka beberkan muxuu recommend gareynayaa? beberkan wuxuu recommend gareynayaa si kooban in dowladda ay accountability ay sameyso ay maxaa la ay promote gareyso accountability-ga gudiyada shaqaaleysiinta ama u qaabilsan dowladda inay ka dhigaan transparency inay muhiim tahay. sidoo kale dowladda waa inay dhiirigelisaa lahay dhalinyarada si ay u aqbalaan any professional development courses oo ka horeeya intaysan shaqaynin. sidoo kale waa in induction loo sameeyo dhalinyarada graduateskooda kadib maxaa la dhahay ka hor fursadaha oo jaamacadaha macnaha suuqa waxyaabaha looga baahan yahay in loo sheego wacyigelin laga siiyo. sidoo kale
waalidiinta iyo maxaan ku idhaahdaa qaraabada inay tixgeliyaan dhalinyarada waxbaratay inay u sameeyaan investment si ay u kiciyaan iskood shaqaysnimada dhalinyarada lagu baraarujiyo lagu kiciyo waa gabagabadii soo gudbay gabagabadii hadda soo gudbo beberkan wuxuu baaray fikirka ay ka aaminsan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed in shaqo la raadiyo 15 ka qayb qaatay ayaa ka qayb qaadatay sidoo kale maxaa ku dhahaa beberkan wuxuu jawaab u helay sida findings ka muuqato laba su'aal cilmi baaristeed mid koowaad oo ahayd waa maxay caqabadaha ugu horgudban shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed jawaabtu waxay noqotay in maxaa la ay ismaajgarin lahayn academic skills iyo job market demand-ka sidoo kale lack of transparency regarding the government process-ka inuu iyadana maxaa la caqabad ay tahay su'aasha labaad waxay ahayd waa maxay talaabada kale ee haystaan dhalinyarada Soomaaliyeed si ay uga maxaa la u yareeyaan shaqo la'aanta waxay ahayd availability for job iyo inay iskood u shaqaystaan self employed activities ay sameeyaan aad ama santihiin magacaygu waa maxamed cabdulaahi axmed waxaan ka socdaa amaan ka imid khaasatan dhuusamareeb macahad halkaas ku yaala oo la yidhaahdo home center dialogue ayaan program director ka ahay markii aan arkay xaqiiqatan ay soo xaysiiyeen labada institution in laga hadlo mowduucaas ayaa inta badan waxyaalaha anagu ama focuskeenna uu yahay ama takhasuskeyga uu yahay waa dhinaca governance-ga golaha deegaanka iyo waxyaalahaas dib u heshiisiinta waxyaalahaasaan ka shaqeynaa marka aad waxaa ii soo jiitay arrinta ah theme-ka maanta meeshaan aan uga hadlayno ku saabsan human capitalka sidii loo invest garay lahaa loo develop garay lahaa markaasaan waxaan go'aansaday marka mowduucan inaan soo diyaariyo insha allahu tacaala mowduucayga waxaan u malaynaa weli lama saarin walaadiina u malaynaa laakiin dhibaato male ma sidii traditionka ahay oo aad taqaaneen insha allahu tacaala ma u samayn doono mawduuciigu wuxuu ahaa youth employment opportunities in Somalia strategies for skill enhancement and economic inclusion marka si guud ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan wax uga sameeyo oo idinka soo jeediyo mawduucu marka mawduuc muhiima waaye laba dhinac markii laga fiiriyo dhinaca koobaad insha allahu tacaala waxaan ka sameeyey reasonska aan u qaatay ilaa 5 arrimo ama 6 arrimood la dhihi karo dhalinyarada Soomaaliyeed waad ogtihiin maanta 70% waa populationka Soomaaliya way ka badan yihiin marka waxay u baahan yihiin mataqaanaa in loo sameeyo muxuu ahaa skill enhancement skillskooda in la dhiso waad ogtihiin qof walba suurtagal maahan aqligalna maahan halkaas ay joogaha oo maasanta marka qof walba suurtagal maahan in mataqaanaa uu shaqo xafiis ka helo shaqooyinkii wadanka ka jiro waa iska yaryihiin marka waxyaalaha loo baahan waxaa kamid ah dhalinyaradu in ay sameeyaan ayagu in ay skillskooda dhisaan adduunkana waad ogtihiin maanta internetka ama teknolojiyada meesha laga gaaro waad ogtihiin in ay mataqaanaa ayagu is dhisaan is horumariyaan arinta koobaad marka mawduucan aan u doortay waxay ahayd horta ama loo baahan yahay dhalinyarada skillkooda in mataqaanaa la baro waxay ku shaqaysan karaan ay ku jiraan ugu yar yihiin macnaa ama ugu hooseeyaan sida wax loo fix garay electricity-ga waxyaalaha midka ah sidoo kale iyo sidoo kale waxyaalaha coding-ka iyo la xiriira ama computer-ka waxyaalaha la xiriira sidoo kale accounting-ka iyo systemskaas oo dhan arrimahaas oo marka ka caawinaya dhalinyarada in ay shaqo si fudud ku helaan ama ayagu ay abuurtaan sidoo kale arinta labaad waxa waaye in laga caawiyo dhalinyarada inay businesskooda bilowdaan saa idin sheegay qof walba suurtagal maaha inuu shaqo helo ama uu xafiis shaqo ka helo waxyaalo loo baahan yahay qofku ama in la sameeyo taa waxa waaye in dhalinyaradu loo sameeyo small loanska ama deymaha yaryarka la siiyo grantas la siiyo ayaguna mataqaanaa qaabkii arrimahaas ay u heli karaan ay u raadiyaan taasoo ka u fududaynayso inay businesskooda ay furtaan haddaba markii businesska ay furtaan maxaa ku xiga dhalinyaradu waxaa imaanayso ama loo baahan yahay providing support and mentoring in loo sameeyo sababta waxaad ogtihiin dhalinyarada Soomaaliyeed businesska markii la furo business in la furo way fududahay laakiin inta gaarta sanad ama ilaa ugu badnaan 5 sano way yartaa waxa arkaysaa dukaan meel laga furay oo yar
maalinta ku xigta maqaayadu meeshii haddana laga furay waxaa arkaysaa haddana maalinta ku xigta internet cafe laga furay internetka waa burbura haddana business kale laga furay waxyaalaha loo baahan yahay marka waxaa ka mid ah in dhallinyaradii guidance la siiyo si ay shaqadoodii mataqaanaa welibana dad u ah khibrad u leh arrintaas ay siiyaan arrinta saddexaadna waxaa waaye access to marketka in laga caawiyo dhallinyarada arrintaas oo u fududaynayso inay productigoodii ay soo saareen xaqiiqatan weliba waxyaalaha muhiimka u ah in aan ka shaqeyno dhinaca beeraha ama agricultureka waxa la isku yiraahdo dhinacii beerihii xoolihii badeennii khayraadkaas oo dhan laga shaqeeyo dhallinyarada ay u jeestaan dhinacaas ayaduna muhiim waaye sidoo kaleetana arrinta shanaadna waxay noqonaysaa improving infrastructurekii in la hormariyo roadskii shalay wada maqlayseenoo wasiirka muxuu ahaa maaliyadda ee SEC Khatuma tusaale uu soo qaadanaya haddii 2 bilyan oo dollar la isiiyo maxaad ku qaban lahayd la yiraahdo priority number 1 wuxuu waxaan ka dhigi lahaa inaan wadooyinka ku dhiso oo infrastructureka haddii la hormariyo oo laga shaqeeyo arrintaas waxay noqonaysaa qofka waad ogtiin hadda dhibaatada waxyaalaha lagu qabo waxaa ka mid ah caanahoo kale khudaarta waxyaalahaas oo dhan dhib badan ay ku soo gaaraan magaalada haddii infrastructureka la hormariyo waxaa laga yaabaa productigii inay si raqiisa ku timaado dadkoo dhan access u heli karaan meelo waxaa jira anigu aan aqaano oo caanaha geela inta isticmaalkoodii dadka ay ka bateen la iska daadiyo marka haddii infrastructure fiican uu jiro waxaa laga yaabaa in laga faa'iideysan lahayo magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale oo muhiimka ay si fudud kusoo gaari lahayn qaaliga haddii inay ka raqiisnaan lahayn arrinta ugu dambe lixaadna waxaa waaye qof walba in laga mataqaana howlgeliyo ama la involve gareeyo waxaa ugu horeeya dowladdii private sectorkii civil society organizationskii international communitygii local communitygii iyo sidoo kaleeto stateska in laga qaybgeliyo arrinta ugu dambeysa marka ma u baahni waa موضوعا ربا inaan si guud u dulmaro marka arinta ugu dambeysana waxa waa dhalinyarada mas'uuliyadda saaran oo aan u bixiyay muxuu ahaa inay ayagu self improvement isku sameeyaan adduunka wada ogtihiin muxuu ahaa simad ilab waxaan u maleynaa executive director keedu ahaa yarka maxamed ali yiraahdo waxyaalo ka hadlay waxa kamid ah courses free ah jira oo dhalinyaradu ay sameyn karaan oo mataqaana shaqooyin ay ku heli karaan muxuu ahaa inay sameeyaan courseskaas is horumariyaan muxuu ah si ay marketkii employability-gooda ay kor u qaadaan arrintaasna waa arrin muhiim ah marka waxaan rabaa insha allahu tacaala intaas waa mawduuca iyo reasonskii iyo aan u qaatay waxaan u gelayaa ama u gudbayaa muxuu ahaa qaybta oo laba slide ayaa ii muhiimsan waa slide-kan muxuu ahaa maadaama mawduucii uu ahaa opportunities iyo muxuu ahaa challengeska waxyaalaha study-ga ay aragtay muxuu ahaa inay challenge ku yihiin ama barrier ay ku yihiin dhalinyarada waxaa kamid ah lack limited access to capital xitaa finance capital oo lacaba dhinaca badan laakiin finance aan dhihi karnaa waxay dhihi weynay sidoo kaleeto market information ma haystaan oo arrinta hadda aan ka hadlaynay waxaa kaloo jirto skill mismatch inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama waxbarashadii quality-geedii ay Soomaaliya waa liidataa aan dhihi karno waxaa laga yaabaa markuu jaamacadda ardayga ka soo baxo in uusan baahida suuqa ka jirto uusan dabooli karin taasna waa dhibaato weyn waxaadna arkaysaa dad ku soo bartay wadamada dariska ah wax ku soo bartay inay shaqooyinkii ay aad u buuxiyaan oo aad arrintaas aad ogtiin laakiin dadkii ka soo baxay locally jaamacadihii ka soo baxay ay issue-ga ugu horeeyay ay ku failgaroobayeen ay tahay language-kii English-kii inaysan noqon qof secondary ka soo baxo wadamada dariska ka yimidna in shaqadiisa fudud oo markaas uu ku heli karo sidoo kaleeto dhaqaalahoon on mataqaanaa stable ahayn iyo maaragtay arrimahaas oo kale istaraatiijiyooyinka marka aan soo jeedinay waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah marka koobaad inaan horta economic inclusion and entrepreneurship inaan hormarino waxaana lagu hormarin karaa through microfinance programmeska mataqaanaa ka jira waddanka inkastoo yar yihiin microfinance programmes ayaa ka jira muxuu waddanka tusaale waxaan soo qaadan karnaa oo kale rais oo 1000 iyo waxyaalo lamida dhalinyarada siisa okay marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan conclusion uga dhigo muxuu slide-ka ugu dambeeya slide-kan insha allahu tacaala waa kooban yahay ma raba inaan wax badan wixii aan soo sheegay ayuu si fiican u soo koobaya in dhalinyaradii skill-kooda kor loo qaado khaasatan waliba policy implementations ayaa loo baahan yahay siyaasadda shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed wasaaradda shaqada iyo muxuu ay sameeyay ayadana iyo sidoo kale tana
waxyaalaha barrierska ama challengeska haddaan kasoo hadlana in la xaliyo qof walba oo mataqaanaa ka qayb qaadanayana ay qusaysana waa ku qorno meeshaas ayay ku samaysan yihiin marka waxaan rabaa maadaama aan si guud markii hore ugu hadlay intaas ayaan kusoo koobaya idinku dheeriya raalli ahada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cabdullahi aad buu u mahadsan yahay presentationkiisa waxaa soo noqnoqdood maqlayseen issuega agriculture beeraha because inkastoo geeleyda laga yaaba isleeyihin maxaa beeraha looga sheekeynaya geel looga hadli waaye geela iyo malaayga iyo kulli beerahay hoos imaadaan agriculturekay ku dhex jiraan marka aan beerahaas xoog saarno xataa haddii geeley leeyahay waxaa waaye waqtigeena oo kooban dadku waxaan aragnay ilaa shalayto waxay jecel yihiin in dadka wax present garaynaya ay su-aalo weydiiyaan kaasaana ugu xiisa badan marka si aan waqti ugu helno taas waxaan codsanaynaa presenteriska iyadoon cadaalad ahayn qof muddo badan wax kasoo shaqaynayo paper soo presentaya in la dhaho 4 daqiiqo 5 daqiiqo kusoo koob haddana highlightka un inaad maaragtay su-aasha laga hadlayay natiijooyin ka soo baxay aad aadaan inta dhexe processka makingka aad ka boodaan si aan waqtiga uga faa'iidaysan haddana waxaan u yeerayaa Dr. Shamsuddin Abikar oo nagala hadli doona the indispensability of investing in education arrinkaas oo runtii aad u muhiima soo dhawow Dr. cabdikariin dadka aan la dagaalayo ku jiriyaa beeraha lagu dhinacaas aada geela waa ka leexday bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiinba alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah الحمد لله الذي قال إن آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلهي وحيري إلهي الرمية نبي الرمية وحي أن خليف إذا كجدنا ترستي أما وكيل إذا كجدنا محا هاي وحكة بحية taas waxaa ka mid ah dhaqaalaha waxaana ka mid ah waxbarashada marka waxaan ka hadli doonaa insha Allah lagama maarmaannimada in la maalgeliyo waxbarashada si kor loogu qaado fursadaha shaqada ee dhalinyarada dulmarka guud wuxuu ku saabsan yahay qasdiga daraasadda aragtiyooyinka habka xog ururinta natiijada xogta saameynta ay ku leedahay ku yeelanayso siyaasadda iyo gunaanad qasdiga daraasadda wuxuu yahay bangiga adduunka 2022 wuxuu yiri shaqa la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysata waxay gaaraysaa 35.63% marka aaday muhiim u tahay in la fahmo xiriirka ka dhaxeeya helitaanka tayo waxbarasho leh iyo dhaqaalaha horumarinta si qofkii uu productive u noqdo marka baaritaanka waxaan asal ugu dhigay laba arrin aragtida caadiga ah iyo maalgelinta iyo aragtida islaamka ee sida loo maalgeliyo waxbarashada dhalinyarada aragtiyooyinka Becker 1962 wuxuu yiri aragtidiisa waxay tahay dadka maalgelinaya waxbarashada waxay kor u qaadaan maxay hayto heerka xirfadda si loo noqdo maxay hayto wax productive dadka inay noqdaan laakiin taas waxay ku aadantaa oo kaliya islaamka ma qabo taasoo tan waxay un tahay adduunka oo kaliya laakiin aragtida islaamka imaam Ghazali wuxuu leeyahay waxbarashada islaamka qasdiga laga leeyahay waxay tahay inuu qofka productive noqdo oo maxay guul gaaro adduunyo iyo aakhiro labadaba inuu gaaro marka xogta aan maxay si aan u aruuriyo methodka aan isticmaalo waxay ahayd waxaan soo qaatay laba xaalad barasho ama case study ee wasaaradda qorsheynta qaranka mid uu yahay the national development planka 2017 ilaa 2019 iyo the Somali national development oo 2020 ilaa 2024 sababta aan u soo qaatay marka maxay tahay labadaas qorshe qorshooyinkaas waxay qorsheeyaan abuurid aragti cusub si isbedel loogu sameeyo dhaqaalaha tan labaad waxay hantiyeeyaan qarannimada Soomaaliya tan saddexaad waxay muujiyaan hamiga Soomaaliya ay leedahay marka macluumaadka waxaan u isticmaalay in habka lafaguridka tayada nuxurka natiijada ka soo baxday 5 mawduuc ayaa ka soo baxay mid waa tababar la'aan macallimiinta tababar la'aantooda taas waa isbedeshay markii qorayaan fila arintan because maalmahan dambe waxa la sameeyay macallimiin badan ayaa la qaatay shaqo la'aan sida uu sheegayaan dadka igu horeeyay xirfadda ay leeyihiin dhalinyarada iyo suuqa xirfadda laga rabo oo aan iskaabeynin ayadana maxay tahay sabab ah agab la'aan
iyadana way jirtaa maamul xumo waxbarasho taas waa soo hagaagaysa arrimaha ayaamahan dambe iyo sinaan la'aan lab iyo dhidig ay u sameeyeen waxbarashada aniga toon ma aqaan runtii inay tahay buuhaada adduunyada oo la leeyahay la iska horkeenayo rag iyo haweenka oo la leeyahay rag iyo haweenka rag waa la ciilaa inay wax rasmi ay tahay ma ogi talooyinka aan soo jeedinayna marka daraasadda ay soo jeedinayso waxay tahay kow in wasaaradda waxbarashada ay maalgeliso horumarinta waxbarashada caruurnimada hore oo tayo leh early childhood waxa way aad muhiim u tahay wadan walba oo inuu horumar rabo early childhood waxbarashadiisa aad muhiim ugu tahay tan labaad wasaaradda waxbarashada iyo tan ganacsiga waa in ay tixgeliyaan tallaabooyin tayo leh si dhalinyarada loo siiyo xirfadda suuqa oo u baahan yahay tan saddexaad wasaaradda waxbarashada waa in ay horumarisaa qorshooyin sare loogu qaadayo heerka suugaanta ku salaysan falsafadda islaamka tan afraad wasaaradda waxbarashada waa inay isku hawshaa baaritaan cilmiyeed lagu fahmayo caqabadaha waxbarashada ka haysta gabdhaha haddii ay runtahay ay jirto waxaan sideedaba tan shanaad sidoo kale wasaaradda waxbarashada waa in ay sahashaa waxbarashada dadka barakacayaasha taasna culays weyn ayay keenaysaa oo waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto tan lixaad wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda ganacsiga waa inay isticmaalaan sharciga nabadgelyada si ay usoo saaraan siyaasad caafimaad ay ku cayiman tahay mas-uuliyadda shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha ay ku cayiman tahay marka tan waa aragtida dheer ee bog ee warshadaynta wadanka in la samayn kara iyo in kale ma oga inaad arki kartaan in kale agriculture-ka ku jiro beeriya ku jirto waxaa ku jiro maxaa shidaalkii waxaa ku jiro life stock waxaa ku jiro maxaa iron sida loo soo saari lahay ayaa ku jiro marka taas habka loo isticmaalayo sidaas sida loo maalgelinayo dhalinyarada waa dhinacaas ku dhiga waqti ma haysta cabdikariim wuxuu yiri hal minute haysataa marka gunaanadka daraasadda waxay baartay habka waxbarashada loo maalgeliyo iyadoo fiirinaysa sare u qaadida heerka suugaanta oo ay la socoto anshaxa islaamka ee dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan xirfadda suuqa oo u baahan yahay in la sameeyo baaritaan cilmiyeed lagu ogaanayo caqabadaha gabdhaha Soomaaliyeed ka haysto waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Dr. Shamsuddin waa mahadsan yahay waqtiga waa hal daqiiqo ma ku darsaday maasha allah runtii waa saan hadalka ku bilaabay cadaalad ma aha qof intuu wax ka soo shaqeeyo haddana la dhooshan daqiiqo laakiin I think su'aalaha inay dadku fursad u heli doonaan taa nafteeda aad u mahadsan tahay waxaan haddan u yeerayaa Dr. Cabdiqaadir Shire Dr. Daaci oo ka hadlaya healthcare investment soo dhawow doctor السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى سلام يا دمان وحكى الله سلام يا مدح هريتيج يا مدح بحين جامعة سيتي يونيفرسيتي ونلصق سلام يا وزير جمال إذا ما ضدك كسوق قبل البرنامج كان حنمل لنا قدام كرفك واسمق لنا صح سانو أرض ده أوكي good alright so ما توحن كهذا دون موضوع عالي هذا prioritizing for fiscal space for the healthcare investment my name is Dr. Abdulqadir Shire هذا all we وحن كيمد yeah should I go here Okay, that's fine. Because we're doing a sharhaya. Okay, good. So the study waxay ku soo doontaa objective and aimska waxay ku base garaysanaa doonaa waxaan sameynaa sort out for the current healthcare Somalia. So basically waxaan study almost waxay sameysay oo kale examine the current healthcare finance in Somalia with the kind of the donor funding and also Somali healthcare Somali government funding keeda dhamaan oo baar laftigeeda analyze waxaan ku sameynay existing fiscal space for the healthcare Somalia laftigeeda waa baarnay waxaan kaloo sameynay identify the changes that we can make marka rabnaa sameynaa fiscal space okay then methodology gaan isticmaalna waxa weeye they say the research badan waxaan ku sameeyay sort waxaan ku sameeyay descriptive and also waxaan isticmaalay qualitative approach so waxaan sameynay focus group and waxaan u kala qaybinay different groups those groups waxay ka yimaadeen dhamaantooda from waxaan institution like economic analyst from non-profit organization from wasaaradda caafimaadka iyo waxay ahaayeen iyo dad kale oo ka socda private sector-ka waxaan kaloo isticmaalnay because to make accurate the value of the accuracy of the data isticmaalayno waxaan isticmaalnay oo aan sameynay the primary data and also secondary data waxaan to complement for that waxaan isticmaalnay inaan sameyno through the reliable database from the inaan ka soo qaadno from the PubMed and Medline information that obtained out waxay mid comparative ahayd okay maxaan helnay markaa istadigeeda maxay ahayd waxaan helnay oo ugu koowaad waxay civil worker dhibaatada ay sababto waxaa ka mid ah resulting oo armed conflict kuwaas waxay burburiyeen dhammaan xarumaha caafimaad all Somali health infrastructure burburiyeen dhammaan
marka waxaa dhacaya poor infrastructure wuxuu sababayaa poor access to the healthcare Soomaaliya yaa dhacay waxaan kaloo helnay inadequate health professional Soomaaliya that ratio-ga hadda xogaa waa kordhisan yahay waxay noqotay 1 to 15,000 before waxaa 1 to 30,000 for healthcare professional Soomaaliya so lack of accessibility so most isbitaalada waxay ku yaalaan magaalooyinka waaweyn baadiyaha kama jiraan so that's what we found out so maxaan kaloo helnay definingkan wuxuu ahaa the healthcare landscape badanaa hadda Soomaaliya ka jira markaan kasoo tagnay kuwii dowladda waxaa dominate gareeyay private sector-ka which markaas culays ku sameeyay dhammaan dadweynaha dadkayga Soomaaliyeed because inay isticmaalaan jeebkooda inay ka bixiyaan lacagaha federal government allocates limited resources to them waxay sameeyeen inay dhaqaale yar u geeyaan qaybaha caafimaadka ama social sector-ka oo dhaqaale yar bay dowlad u allocate gareysay meelahaas research waxaan markaa baan waxaan kaloo helnay there is a lack of qualified professional Somalia especially this one waxaan ka hadli doonaa the next pages okay because waqti yar baa haystaa hadda waxaan bobsiinayaa defining healthcare facilities Somalia waxaa cajiiba you know isbitaalada badankooda qaarkood dekaanood ma bixiyaan oo macnaha waxay bixiyaan limited you know like healthcare ay bixiyaan remember waxaa jira cajiib ah waxaan aragnay oon baaray marka waxaan helay 846 registered isbitaal ah in Somalia almost like waxa cajiib oo kale 246 oo maternity clinic weeyaan waddankan wuxuu leeyahay 7 referral hospital you know so that's what because that population can be 18 million you know so most of the hospital only you know limited hatta hada sharaxay waxa kale some hospitals they perform basic you know operation you know Somalia so waxa kale kamid the patient ratio right now 2024 2020 waxay ahayd 1 to 30,000 hadda to compare hadda Mareykanka oo kale waxa weeyaan 2.8 iyo 1,000 weeyaan laakiin Soomaaliya waa arkaysan gaab ka jira 1 to 15,000 weeyaan okay final disease marka maxaa kale xanuunada Soomaaliya dhibaatada ka jira aan helnay maxay tahay the current healthcare Soomaaliya waxay jirtaa inuusan waxba xalin karin because waxaa jira waxa la yiraahdaa xanuunada treatable and preventable disease oo easy ah in dadku baaba'ayaan Soomaaliya which there is no madness in other country or around the globe حقيقة taas waxay tahay mid niyadjaba so infectionska waata germska iyo cudurrada oo communicable disease oo dalka ku sii kordhaya waxa ka jira hadda fiir Soomaaliya 6% of Soomaaliya badanaa waxa ku dhaca xanuunada corona disease that 6% 33% ka mid ah waxa ku dhacay xanuunada blood pressure ka ku wada qabaan 20% na waxay la dagaalamayaan diabetes 8% waxa weeyaan waxa ku dhacay kidney disease 8% waxa weeyaan xanuunada lafaha okay 5% kan waxa ku dhaca xanuunada maskaxda waxa kale cajiib ah 42% dadkaas xanuunaas aan sheegnay inay jeebkeeda ka bixiyaan lacagta you know so taas waa isla markaas si dhibaateynaysa dhaqaalaha diseaska Soomaaliya waa arkana malaynaya dadka badan xanuunada u dhintaan Soomaaliya lower respiratory tract infection number 1 ah magarat waa COPD you know so waxa kale cajiib ah aad arkaysa waxa kamid ah Soomaaliya why you need new physical space you know July September wasaaradda caafimaadka waxay reportka sheegtay waxa kamid ah almost like 1.7 million yaa waxay boqday isbitaalada outpatient department-ka tagay you know almost that 3% increase 2022 so here waad aragtaa mana isbitaalada hadda xanuunada kale ku dhinta carruurta waxa kamid ah like neonatal disease especially UNICEF waxay tiri 2024 hadda reportka soo saartay waxa kamid ah waxay tiri like 8 kamid ah carruurteeda in 100,000 you know like waba dhintaanba bisha hore qaarkoodna first year ba ma gaaraan you know so the community humanitarian crisis xaalad caafimaadka waa sii dhibaateysay okay leading cause of morbidity Somalia isbitaalada dadka u tagan xanuunada waxaa kamid ah xanuunka shuban biyoodka policy implicationka waa dowladda waxaan ka rabnaa oo kale badan aan aragnay waxaa kamid ah dhibaatada jirta budget relocationka kamid ah laakiin dowladda waxaan ka aragnay systemka markaan baarnay dowladda federal right now waxay approve gareysay like 1 billion budget at the same time the social sector waxa loogu talagalay waxay ahayd 260 million so in caafimaadka 2023 dowladda waxay siisay 83 million this year 2024 dowladda waxay approve gareysay like budget reduction oo 52 million you know dareemisa marka hoos baarid u sii socotaa marka you know so increase the revenue generation dowladda canshuur dadka ku kordhisay si la sheegay right now like we don't know what's going on with the next issue so here policy implicationka partnership-da la shaqeeyo dowladda talooyinka bixinay kamid tahay for healthcare of training inay sameeyaan waxaan su'aalaha kaga jawaabi doonaa mid ugu dambeeyay conclusion ku sameeyay xakameed rama
waa in badanaa si dadka way kordhayaan, dadku way dhalan way badanayaan xaqiiqatan. We are not expecting like maybe like 80 million baan rahnaa, laakiin inay ka bataan waa macquul. So waxaa loo baahan yahay in at the same time caafimaadku inuu kordho, ama xarumaha caafimaadka inay si dhammaadaan ma aha, si baaba'an ma aha. waxaa kaloo ka mid ah dowladda quality health care si loo hela waa in at the same time inay samayso dowladda inay generate garayso training professionalska, isbitaalada barbar dib in loo dhiso dhammaantooda healthki marka taa waxay kordhaysaa in dhaqaalihii dalkii dib u kaco. marka waan ka baxay intaas ku soo guuray. waxaa noo dhiman odaygii beeraha miya iyo culum kaleeto, cali nuur aan soo dhaweyno, cali aadan gareedo, baydhabo ilaa iyo inta beero ku yaalaan dhulka oo gaalkacya hadda ilada waa ku jirnaa. soo dhawow my brother cali nuur. presentationka xagga ma ka jeedinaysaa? okay 5 minutes. asalaamu calaykum. heritage iyo city university aad u mahadsan yihiin runtii fursadan qaaliga ah ay bixiyeen. anigu daraasad ma soo diyaarinin, laakiin waxaan ka eegayaa dhanka howlaha aan ku jiray muddo 30 sano ku dhawaad ah iyo wax la jiraba weliba oo ah humanitarian perspective-ka dhinaca human capitalka iyo caqabadaha ka jiro, iyo especially si gaar ah dadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta iyo dhibaatada badan ku haysato iyo waxa ay face gareynayaan runtii. waxaan fahmi karaa qofkii organization noocaas ran gareynaya ama meel joogo oo shaqaalnimo iyo loo soo doonanaya fahmi kara dhibaatada ay face gareynayaan ama ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed runtii. horta waxaan aaminsanahay wax la dhiso oo investment lagu sameeyo waxa ugu qaalisan bani aadamka. haddii bani aadamku uusan dhisnayn wadana ma horumari karo, bulshada ma horumari karto. marka waa runtii mowduuc aad u weyn oo muhiim ahaa waqtigiis ku soo aaday. waxaan runtii aad uga helay ilaa shalay subaxii aan joogay halkan dad dhalinyaro oo aad u da'yar weliba runtii presentationada ay jeedinayeen, macluumaadka ku jiray sida runtii ay cajiib runtii aad waxay u ahayd arrin marar qaarkood haddaadan ku dhex jirin hataa sectorkaas iyo bulshada aan si fiican uga dhex jirin hataa waxaa laga yaabaa inaadan haysanin fikirka ah in waxaasba ay jiraan. runtii waxay ahayd dad aad u da'yar weliba aan dad waaweyn ahayn. runtii aad bay dhalinyarada Soomaaliyeed u dadaaleen marka laga soo tago inay dhibaatooyin iyo caqabado aad u waaweyn wajahayaan. intaa marka halkaas ugu gudbo dhanka wax soo saarka oo hadda ustaadka dabcan inaga dad Soomaaliyeed waxa loo kala saaray waxaa la yidhi beeraley iyo geeley. laakiin marka la isku soo celiyo waxay kulligood beeraley hoos yimaadaan sababtoo geel xoolaha ama kalluumays waxaan oo dhan waa yani agriculture sector-kay ka mid yihiin. marka aniga waxaan xasuustaa oo runtii marar qaarkood aad i xanuunjiya marka to be honest magaalada Baydhabo aan ku dhashay kusoo barbaaray inkastoo mar dambe aan runtii iskuulkeyga iyo kulli xamar aan ku koray. markii aan ku laabtay magaalada Baydhabo oo dee Soomaalidu ay kala carartay nin waliba meeshii uu ka yimid loo kala aaday, waxaan xasuustaa 1992 aan ku laabtay magaalada Baydhabo. xilli adag bay ahayd oo magaalada loo bixiyay magaaladii geerida oo dad badan oo Soomaaliyeed ku dhamaanayeen maalinkiiba ayna ahayd dhibaato dad Soomaaliyeed abuureen hataa aysan ahayn abaar ama dhibaato disaster kale iska u dhacay. marka marbi taariikh xanuun badan waa inaan dib ugu laabto, laakiin waxyaabaha aan soo qaadanayo waxaa ka mid ah dhinaca yani productionkii agricultural sector marka laga hadlayo. galabkii marka la joogo Baydhabo qofkii jooge 9 saac markii la gaaro ama 3 waxaad arkaysaa 50-60 trailer oo misaga ka buuxdo oo xamar soo aaday. suuqa Bakaara waxaa ku ori jiray suuq la yiraahdo suuqa badarka ama misagada. gawaaridaas dan waxay u sii qaadi jireen ilaa Soomaaliya xuduudeedii iyo ay u sii kala gudbin jireen. maanta magaalada Baydhabo gaariga geeya waxaa la geeyaa bariisuu geeyaa, buruu geeyaa, sonkoruu geeyaa, saliiduu geeyaa. markuu kusoo laabanayo maybe dad inay soo raacaan, laakiin hal kiish oo misaga lama soo saaro gawaarigaas soo uu soo laabtaa. qof kastoo Soomaaliya marka wuu dareemi karaa yani xajmiga iyo culeyska intaa la eg oo Soomaaliya ku dhacay. runtii marka su-aasha la isweydiinaya waxay tahay dadkii iyaga ahaa haaway xaggee aadeen? ma dadkii baa dhammaaday
maxaa isbedelay waxaa isbedelay dadkii ammaan yani securitygoodii xumaaday waxaa xumaaday climate change waxaan issuegan oo runtii Soomaalida aysan fahamsanayn laakiin run oo dhibaato badan oo culayskiisa wato oo ambassador Jamaal oo halkan joogo oo runtii khabiir oo waxaan iska shaqeeyay aad u og waxba isugu darsamay dadkii ayaga ah waxay noqdeen IDPs maanta close 4 million dad ah oo Soomaaliyada IDP gudaha Soomaaliya ku barakacay oo degan dadkaasna 95% waxaan dhihi karaa haddaysan 100 ba ahayn waxay ka yimaadeen dhulkaasi oo misigadaas laga soo saari jiray marka I think it is a national issues haddaan rabno inaan security ka shaqeyno haddaan rabno inaan dhaqaale ka hadalno haddaan rabno horumar inaan ka hadalno haddaan rabno inaan human capital ka hadalno waa in dadkaasi ay dowladda inta strategy u dejiso ay la wajahaa marka intaas ka soo tago aniga organizationkaas ran garaya organizationkaas waxa uu shaqeeyay maanta ilaa 800 qof Soomaaliyeed oo meel kaas ka timid waxaan fahmi karaa caqabadaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay wajahayaan dhinaca education sector kan ka aada dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed gudaha ku dhalatay ku soo rafaaday hooyooyin Soomaaliyeed oo ama badar laamiyada dariiqada ku iibinay ama meelaha fadhiyo oo wax ku yani ka shaqeynay oo dhibaatada badan qorraxda ku dhacaysa ay soo koriyeen oo school fees ka soo dhiibeen marka ay shaqo soo doontaan fursadaha ay heli karaan waa aad u yartahay runtii oo marka imtixaan ay timaado waxa laga yaabaa cunug ama gabar ama wiil Soomaaliyeed oo dabcan Kenya ama meelahaas wadamadaas kale wax ku bartay oo primary school hatta not secondary ka soo baxay iyo qof halkan jaamacadu ka baxay lug leeyahay inay fursadii aysan u sineen because of waxa lagu shaqeynaa English ah marka language barrier xoog badan halkaas ka jiro oo dadaalin dhalinyarada runtii duruuf badan wax ku soo barteen hooyooyinkii iyo waalidku way dadaaleen laakiin haddaan la helin quality education haddaan loo helin dadkan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada ay wajahayaan mid ka daranaysay wajihi doonaan haddii aniga sidaan qiyaastaydu tahay marka runtii dadkaas maanta hay'adda u shaqeynaya organizationkaas 75% dad waa dad ama Kenya ka yimid ama Djibouti ka yimid ama Ethiopia ka yimid waay halka ay dadkii gudaha ay shaqadaas ay ahayd in ay helaan ay misgareynaan sababtoo waa duruuftii keenaysa ilaa wax lagu shaqeynayo waa maxaan ku rahdaye waa luuqad hay'ad organizational loo shaqeynaa marka I feel bad marka aan arko wiil ama gabar Soomaaliyeed oo magaalada Baydhabo ku dhalatay ama xawr ku dhalatay shaqo soo doonatay imtixaan markay gashay ay qaar kamid ah ay ku leeyihiin bachelor ay haystaan waxa Ilaahay tusay aan ahayn burbugaan gabar baa nin saaxiiba ii keenay uu leeyahay gabadhii master degree haysataa shaqadiisii gabadhii markii aan shaqada siinay test laga qaaday one line oo English oo isku xiran ma qori karto you can imagine يعني انت dhibaato la soo maray inta ay soo martay marka it is very sad ani marka waxaan dhihi lahaa runtii rabaa in xoog la saaro hadaan rabno human capital ka hadlayno quality education in la aado waliba dadka education yani institutionadan oo jaamacadaha i rangareynay waxaan jeclaan lahaa aan ka codsan lahaa in xoog la saaro instead of production laga fikir lahaa 2,000 la soo saaro sanadkii aan qorshano loo haynin oo shaqana aysan heli karin hadhow laga yaabo in dhibaatada ku laabtaan in lagu dadaalo sidee loo soo saari karaa dad yani numberkooda aan intaas hayn laakiin wax bartay oo awood u leh marka ay jaamacada ka baxaan inay shaqadii ay raadsadaan heli karaan waxyaabaha la yaab kale aan arkay waxa kamid ah halkaan ku noolaa xamar inta badan waxyaabaha soo qaadanayo waxa kamid ah school baan arkay wuxuu ahaa private waxa English lagu dhiganayo English yani schoolka noocaas ahaa ma rabi inaan magaciisa sheego sanad kadib waxaan arkay asoo leh school primary and secondary school isla magaciisa loo sameeyay sanad kadib waxaan arkay schoolkii oo jaamacad loo sameeyo oo jaamacad leh oo magacii leh yani within 3 years private school waxa English lagu barto and then wuxuu noqday school u yeeshay ilaa secondary ah uu yeeshay isla magacii sanad kadib jaamacad waay magaalo Muqdisho maybe ku yaala jaamacad way dad u soo saara marka ustaad arimahaasaan rabaa inaan runtii highlight gareeyo waxyaabaha challenge-ga nagu ahay kamid yihiin oo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed challenge-gu ku ah oo caqabadaha ku hodhay ay face gareeyaan marka aad iyo aad u mahadsantiin waxba kama qaba inaan 10 minutes annaka qaadana kaleeto oo aan su'aalo isweydiino hadaa shaahin aadaysan waa meesheeda I have a couple of comments or questions maybe inaan saddex su'aalood qaadano saddex su'aalood inaan qaadano and then jawaabtan aad noo fududeysaan since I have the microphone ana ka faa'iideysanay ku hormaraya study-ga oo hadda
heritage ay soo saartay folderska ku jira waxaa ku jira qayb oo laga hadlayay inay dowladdu qorsheynteeda ku darto shaqooyinka loo baahan yahay in dadka loo tababaro dhowr kun 5,000 iyo ka badan oo scholarship baa Soomaalida la siiyaa sanad walba oo dowladaha aan saaxiibka nahay siiyaan from Egypt to China to wadamo kale in dowladda ay dhahdo waxaan u baahanahay agricultural engineers maxaan ku dhahaa marine scientists oo yaqaana fisheries management iyo sustainability hadday tahay water resources management wax aan u baahanahay in la dhaho dadkan hala soo baro hadda scholarshipkii qof baa la siinayaa business administration buu baranayaa accounting buu baranayaa ceeb ma aha computer science buu baranayaa laakiin waddanka wuxuu u baahnaa maaha of course soo noqoshada is another issue turkidu waxay kala shaqeynayeen dowladda Soomaalida in dadku ay soo noqdaan oo halkan markay imaadaan ka bacdi ay shahaado qaataan iyo wax la mid ah marka qorsho oo noo yaala waa in la ismaaj gareeyo dad badan ay ka dhawaajiyeen issueskaas waxa kaloo ku yaalay surveygaas la sameeyo nationwide ahaa waddanka qaybihiisa oo dhan dad laga soo ururiyay macluumaad 40,000 oo qof la wacay boqolkiiba 33 dadka Soomaaliyeed inay markay xanuunsadaan ay daawo u doontaan farmashiyaha dhakhtar ma tagaan dhakhtar meeshooda kuma yaalo ama lacagtay ku tagi lahayn ma haystaan maxay sameeyeen marka farmashiyaha tagayeen farmashiyaha ayaa jooga nin xariifa jooga oo probably geelay oo maaragtay meesha business looga furay qamiis cadu gashana hadduu rabana stethoscope qoorta saarana si uu dadka u khaldo dadka markay soo galaan waxay malayaan ninkan dhakhtar culus waa yani ya waa nasiib daro waxay u baahan tahay in la manage gareeyo dadkii daawo khalada haddii la sii waa ku xanuunsanayaan waxa waaye waa uga daraysaa waa laga yaabaa inay ku dhintaan iyo wax la mid ah marka dhakhaatiirta loo doonanayo India iyo Turkiya iyo meel walba Soomaalidu dad businessmen ay ahaan jireen waxaan ka yaabanahay waay cusbitaal weyn oo referral oo top notch oo dhakhaatiirtii specialization walba leh looga furi waaye Xamar ama Baydhabo ama Kismaayo ama Gaalkacyo ama Hargeysa oo dadku ay aadaan kharashkii waxa u baaqan lahaa tigidhka hotelka wax oo dhan iyo safarka business ahaan waa looga faa'iidi lahaa aan inta ku ekaysto 3 su'aalood waa 1 waa 2 gabadha dambe waa 3 ninka odayga topiga maanta laga hadlaayo waa topic taabanayo reality-ga waxa ka jira yani waddanka qof walba waddankan soo joogay kuna shaqeeyay wuxuu dareen weyn ah oo ka duwan cid walba buu xambaarsan yahay marka topican oo kale wuxuu ku fiicnaa in xogaa waqti macquul ah la siiyo waxaan talo u soo jeedinayaa heritage iyo annagu laftirkeeno iraad ah iyo waliba city oo hadda city university oo hawshan ku jirta in doodaha ay ka bataan soo jeedinta laano soo jeedinta way nagu badatay maalin walba how many research jaamacadaha laga sameeyaa it doesn't make sense haddaan loo bedelaynin practical loo bedelaynin aan u soo noqdo su'aashaydii arinta uu ka dhawaajiyay Cali Nuur waa arin qof walba taabanaysa anigu waxa igu dhacday qof baa waxa igu yiri qof computer yaqaan keen markaasaan gabar wadatay shahaadooyin computer waddanka ku baratay baan shaqadii geeyay markaan arkay qualificationskeeda waan ku qancay waan geeyay markaan geeyay bay computerkii baa la yiri shit waxay ka taqaanay hal dhinac oo laga shido mid ka duwan bay ahayd versionkii iyada taqaanay mid ka duwan buu ahaa nasiib daro way shidi weyse marka lagu soo noqdo loo yiri gabadhii hawshii yani si waxaad noo soo dirtay qof aan weligiiba computer fariisanin baan ku soo noqdo xunka maxaa kugu dhacay waxay igu tiri waxaa laga yaabaa intaan dhiganaya 2 jeer dhan computer fariistay computer bayna ka soo baxday imagine marka qofka noocaas ah intuu shaqo ka heli karaa arrimaha waxbarashada haddaan wax yar hoosta u galo waxaa la yiri hadda manhajkii waxaa laga dhigay Soomaali Soomaha lamaantan markaan ku soo celcelinayna maxaan lahayn language-ka beerdada kullitaan Soomaali baan joogaa Soomaali baa laga shaqeynayaa waxaa lagu qasbay dadkii inay language English wax ku sameeyaan hay'adaha dhan waxay u baahan qof English yaqaan maxay ahayd bangiyada waxay u baahan qof English yaqaan dawladdu waxay u baahan qof English yaqaan so let us do English on an ka bilowno pre-education keena English aan ka dhigno ilaa hay yani dugsiga sare ilaa jaamacadii marka ku eedeeya dhalinyarada maanta shaqo la'aanta ah
maxay English u qori waayeen uguna hadli waayeen taas waa midda labaad raali ah hal xab bas been waa bogsiinaya midda labaad waxa infrastructure baa laga hadlay maxay dawladdu ama in private sector-ka inta isku tagaan maadaama ay tahay arin critical ah lagu soo celceliyay ilaa shalay ilaa maanta public private partnership inta la sameeyo at least waxa ku filan bajaajka canshuurta laga qaado baa wadooyinka noo dhisi kara marka taa iyaduna in aad loogu baraarugo midda ugu dambayso ku soo gabagabaynayo waxa waaye I'm sorry shaqo la'aanta annaga abuurayna waxaan abuuraynaa shaqo la'aan waxaan u abuuraynaa waxaan mar walba ku shaqeynaa waxa la yiraahdo corruption yaa taqaana nooba sameeyo dhalinyaradeena waxa la yiraahdo placement looma sameeyo internship dhammaantood waxay ka soo baxaan caafimaad suuqa lagu daaya waxay ka soo baxaan business suuqa lagu daaya intuu ka baranayaa wax marka waxay ila tahay education sector kana dib ha loogu noqdo language kana dib ha loogu noqdo ma santiin السلام عليكم مركا هاري وحن رابينا سؤال كهريو محمد عبد الله ويديو سؤال وحويان skills enhancement بقى شاكسي مركا research كسبنا سمحي had mostly lacked skill دليرة دحدة تكالتها وحيتها high school كمركا لمريو دليرتنا لقما أبابيو حتى summer school وحلا دهاي أو لودرو after the year at the end of the year مركا لقبرو very important skills لقبرو and عيالك marka skillskaas had waxa la dhahaa skills major early stage ayaa lagu ababiyaa dhalinyarada skillkaas so that gradually markay qalin jabiyaan skillkiisii uga faa'iideystaan gap year haday galo ama vocational skills opportunities oo suuqa ka jiro ay ku apply gareyn karaan oo ay money making ay ka sameyn karaan takalata waxa vocational skills qof baa haday kala wajah ma quite sure about that vocational skills can be created is an opportunity waa suuqa ka jiro oo looga maarmi karo degree in تكتيد وهذا of course that's another way why so Asha what mostly lacked skills you found during your research محمد إنه جامعة كونفورت الصومالية researcher essayist poet and educationist marka waxa fiicnaan lahaa inta xoogaa waqtiga la caburin lahaa topic ya laga hadlay xoogaa inaa wax iska fiicnaan leed ustaadow bes waayahay inta kale waa iska liqaa waxaan weydiinayaa dadka cilmi baarista soo bandhigay waxay dhaheen ay ku beysgareysneed Soomaaliya midna waxay ahayd 15 qofooda laga sameeyay ta kale tana tiradii ma naqaano laakiin geographical scope kama hadlin marka ma lagu beysgareyn karaa millions of unemployed youth 15 resultigi ka soo baxay 15 qof cilmi baaristi lagu sameeyay marka ma wax u dhacay inadvertently mise waa wax ee loo sameeyay muxuu ahaaye xoogaa reluctance oo meeshka jiray waa mahadsantahay United Nations ka reportka ee qorta 1953 ga oo vernacular language ka ku saabsan page-kiisa 11 wuxuu leeyahay ilmaha qaasatan waqtiga hore waa in lagu baraa luqadooda hooyo waxay aad muhiim ugu tahay psychologically ay muhiim ugu tahay sociologically identity-da u yihiin spiritual xataa u tahay marka aaday muhiim u tahay ilmaha inay bartaan wax walba oo maxay ahayd la baraayana in lagu barto aniga macalinka ay maxay ahayd magaalada Bristol waa arkay muhiimadda ay leedahay dissertation-keygii oo doctorate-kana waa ku qaatay taas waa goona language-ka waxaa lagu leeyahay marka sida aad sheegtay dhibka ka haysto Professor Cummins nin la yiraahdo oo Canadian ah oo bilingual-ka aad u qora wuxuu yiri wuxuu soo saaray threshold hypothesis wax la yiraahdo wuxuu yiri caruurta luqadooda hooyo guriga aad u haysta oo ku dara luqadda labaad inay bartaan waxay leeyihiin cognitive advantage ay leeyihiin garashadooda aad u sareynaysa haddii cunuga language-ka guriga uu dhumiyo oo labada language mid uu haysto malaha cognitive advantage na malaha disadvantage na malaha laakiin marka cunuga luqadiisa hooyo uu dhumiyo oo luqadii kale uusan gaarin aad ay u badan tahay Cummins waxa kale uu sameeyay laba language oo kala saaray language-ka oo maxaa ahayd socialka qofku wuxuu ku gaaraa caruurta wuxuu ku gaaraa ilaa 2 sano laakiin waxa jira mid kale oo la yiraahdo colb la yiraahdo
cognitive advantage academic proficiency oo qaadata 5 ilaa 7 sano qaadata marka ayaan lagu ka tsoomin caruurta maxaa ahayd yaan la eedin أنا فافاي وجعلها لكن بروفيسور عبد الكريم وما سنتهاي قدومي وقبل مقعين والمي لكن دم لهن رالي هالنقطة هرتا ريسيرش كان سميني ني حقيقة إن كستو بيبر ككل جد على سوق مركي لسوق بنا وحالي واحد سوق بسان ماكسيمم 4000 واتس كبعدين وحالي هذا واحد صدرتان 10 سلايدز مركا لكن دتك مركا وريسني لبا أرين ayaa muhiim ah oo researchkaygu markuu weyn yahay oo macnaha ballaarnay waxyaalaha aan aragno waxa kamid ah waxa la dhaho technical and vocational skills inay dhalinyarada Soomaaliyeed aad u leeyihiin technical and vocational skills marka laga hadlayo marka waa hadalkaygan waa inuu ku bilaabo dadkoo dhan suurtagal maahan in ay xafiis wada fariistaan oo ay mataqaanaa maarata white collar jobs ay ka wada shaqeeyaan macquul ma dadku waxa loo baahan yahay in different areas ay ka wada shaqeeyaan waxa kamid ah arrimaha la xiriira constructionka engineeringka sida carpentry plumbingka weldingka iyo waxyaalaha la xiriira waxaa kaloo ayadana muhiim ahayd oo aad mataqaana hoos looga xariiqay information technology waxyaalaha la xiriira web developmentiga graphic designka oo xaqiiqatan leeyahay badan hadda ka shaqeeyaan oo lacagna ay ka sameeyaan waliba lacag fiican ay ka soo gasho teamna ay ka shaqeeyaan oo xitaa dibadda ay uga timaado oo waxaa la kamid ah arrintaasna sidoo kaleeto manufacturingka iyo waxyaalaha la xiriira arrinta labaad marka oo soo koobayo muhiimka ahna waxay ahayd ay laayihiin soft skillska waxaan ugu horeysa communication teamwork and problem solving dhalinyarada Soomaaliya xitaa markay shaqeeyaan anigu intaan arkay problem solving kooda almost waa next all near to zero waa qof waxa laga yaabaa waxa aad arkaysaa shaqo loo diray maanta in la direct gareey raba waxaan sameey leeyahay marka ani waxaan idhaahdaa marka teamkayga aan la hadlay waxaan idhaahdaa I don't want you to tell me problems. Tell me there was a problem and this was the solution. Taasan ku yiraahdaa aniga marka qofku inuu wax barto oo communication kiisana habeeyo problem solving kor u qaado waxa soo dhan ayaa iyadana aan mataqaana muhiima ama santiin professorka aad u mahadsantihiin waxaan rabaa taa u dambaysa inaan wax yar runtii ka taabto hoos waxaa joogay professor Afyara Cabdi Cilmi oo kamid ahaa dadkii qiimeynayay research-yadii la soo diray ee meeshan lagu present gareynayay documents fara badan baa la soo diray dad badan baa paper soo diray waa la qiimeeyay in yar baa laga qaatay inta yar ma aha kulligeed wax la publish gareyn karo laakiin waxay mowduuc oo relevant ah oo lagu present gareyn karo halkan ayay lahaayeen 40 baa la qaatay last year meesha lagu present gareeyay 8 baa laga publish gareynaya inta kaleeto waxay ahaayeen mowduuc useful oo si fiican loo present gareeyay laakiin aan gaarin meeshii la publish gareyn lahaa marka waraaqaha documentiga la publish gareey la soo present gareeyay halkan iyo hoosba ma aha levelkii publicationka laakiin presentable bay ahaayeen macluumaad relevant ah haysideen dhalinyaro badan oo cusub oo qaarkood ay yihiin first time researchersna waa lagu dhiirigelinaya I hope that answers your question my brother waxaan rabaa inaan runtii wax yar ku noqdo waxbarashada wax badan baa laga sheegay run waaye mashaakil baa ka jira waxbarashadeena u baahan xal laakiin kulligeed saas ma wada aha jaamacado iyo iskoolo waxaa jira fiican ha yaraadaan tiradooda oo dadaalaya oo caruurtu markay foundation year intay dhameeyaan oo City University ay kamid tahay luqadda la baro way ku kala dadaal badan yihiin laakiin intayan bilaabin dad ajnabi si wax uga bartaan luqad barta oo jaamacad markay dhameeyeen qaar badan scholarships ka heleen oo full scholarships ka heleen ilaa Canada ilaa Mareykan ilaa Europe ilaa Japan ilaa Germany oo wax ku soo bartaan so ma wada aha city kaliya ma aha jaamacado badan bay arday ka baxday baa dadaasha so ma wada liidato laakiin mashaakil run ah jira inta la sheegay oo mashaakilana way badan tahay systemka waxbarashada waxba laga bedelay hadda oo iskoolkii jaamacadda qofkii soo gala shahaado ma iibsan karo hal sano kuma dhameyn karo 2 sano kuma dhameyn karo 3 sano kuma dhameyn karo system baa la sameeyay la geliyay macluumaadkii qofkuna waa inuu systemkaas raaca oo sanadba sanad uga gudbaa foundation ilaa 4 sano ku xigta marka waa horumar baa jira mashaakilka jirana waxa lismayaa fadlan uscabiya panelkan oo aad u dadaalay aad u mahadsantihiin aan breakna saasan ku qaadanaynaa insha Allah sessionka dambe aan u diyaar garoon